السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا وناكسن ميلكستو أدون كاد كتشوكتان هلكا النقل السعوتان وكفتنك سياسة هي علي حراري. هذا بدو جوجا شرفت له دون كاد على دي سجوجا واحد حسيا كفتنك سياسة أو علي حراري إسكسو دبردو صون السارو بالمالك كستا يوي كستا بالوحو كسابسي هاي تيو بدنا الصوماليين أيها يغلف تقول أن لو ذاك مش هو كان إنه هاي كفتنك سياسة وبرنامجك لو بحية كفتنك سياسة هي علي حراري بل هذا علي حراري أي وقبحنا بالكفتنك سياسة إيوه ما أنت علي سودان وين ياسينو مركو صباحا هلكن aan mahadnaq u soo jeedinaya صح dadka inta badan in la daawado برنامج feedback comments in soo siiyo صح ka faallada sida aragtidooda waxaan in galmada in ay barnaamijkii la qabsadeen oo dad fara badan ay iminka si fiican ay u daawadaan صح waxaan eegi doonaa oo dadka markuu la soo dhaweynaya in la yiraahdo sida ay ku daawanay YouTube جابري إنه وياه أو رجع قال صح أيا برنامج كيلو دمعين قيمة هي أو هذا بضدك كسر وأركان أركتيدك أيوة أركان كاميرا تيسي ميكروفون كيسي مجال الأحمر هي رجع له ضدك قفلك قرن معي هي مركا ضدك مو إسكوي دينيا برسي وأركان هي مركا ضدك أوفر بدن أويس هنشأله إن لاست تعرف كسر قانون أنا كسر قانون أو أنا بدونها تصنع أركتنا غير عرقاله أي برنامج كان كفتن كسياسة ده أي كقبل بل داوشون سمكر magacaygu waa Wada Cabdi Axmed anoo ka soo gobolka Sanaag gaar ahaan magaalada Cergaabo waan soo dhaweynayaa barnaamijka kaftanka siyaasadda aan ku farax waan ku xidhnahay in badan aygu waa Amina Cali Maxamed oo ku nool magaalada Cergaabo barnaamijka la yiraahdo kaftanka siyaasadda aad soo dhaweynaya barnaamijka aad iyo aad baan ugu xidhanay oo barnaamij wallahi aad iyo cajibiyay oo aad iyo aad uga helay masha Allah barnaamijkaas waa soo dhaweynaya iyo mudanayaasha soo daayay barnaamijka soo daayaan Cali Xaraare iyo Yaasiin Ducaale waa daawada runtii waa soo dhaweynaya waana xiiseeya bismillaahi raxmaani raxiim anigoo la yaado magacayga Maxamed Axmed Shire oo ku nool gobolka Cergaabo ka dadka rayidka ee gobolka Cergaabo ku nool kamida waa soo dhaweynaynaa Cali Xaraare iyo barnaamijkiisa hardan ka dhiibta aragtideeda ku wajahan barnaamijka kaftanka siyaasadda social media laga soo daayo ay soo tabiyaan Cali Xaraare iyo Yaasiin Ducaale ruuxantan aad baa ula socdaa waxyaalo badan oo xaqaa'iq taabanayna waa ka hadlaa ka turjumaya maanta siyaasiyiinta Soomaaliyeed waxa ay ku minan yihiin iyo qaabka ay u dhaqmaan bulshadana waa loo iftiimiyaa waxyaalo madmadow kaga jirana haddii alla ku rahay waa loogu soo gudbiyaa oo halka loogu iftiimiyaa oo barnaamij ruuxantan waan la socdaa aad baan la socdaa waana bogaadinayaa waxaan leeyahay halka ka sii wada idinkoo haddii alla ku rahay bulshadina la wadaagaya waxyaalaha maanta ay siyaasiyiintoodu ka shaqeeyay xalay ku dhaqmaan waa maasantiin billahi tawfiiq aniga waa Saciid Axmed Warsame jooga kana mid ah dhalinyarada magaalada Cergaabo barnaamijka ka baxa Minnesota laga soo daayay ay sii daayaan Yaasiin Ducaale iyo Cali Xaraare barnaamij aad iyo aad saameyn ugu leh bulshadana aad iyo aad ay soo dhaweysay wixii jira markaa oo soo kordhana laga wada hadlo siyaasadda dalkuna aad ba meesha mariso ay ku tabiyaan iyo qaabka wax u socdaan barnaamijka inaad sii kordhisaan mooyaan waxaan jecelahay in halkiisa laga sii wado aan inaga joogsan waana dhiirigelinayna waana ku bahsantihiin magacaygu waa Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo waxaan ay gudoomiyaha dhalinyarada xisbiga wadani ee gobolka Sanaag waxaan soo dhaweynaynaa barnaamijka ay soo diyaariyaan Cali Xaraare iyo Yaasiin aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa hadaan dhalinyarada gobolka Sanaag waxaan leenahay mahadsan halka ka sii wada aad iyo aad baan idinku tahniyadeynaynaa waxaan ku taageersanahay dhammaan dhalinyarada gobolka Sanaag si uga hadlayeen Cergaabo iyo siyaasadda ay ka falaqeeyaan okay waan soo dhaweynaynaa aad iyo aad baan mahadsantiin يا تذكر كهر يا بس كهر يا سما Cergaabo دوا wadada البحر هي midda kale barnaamijkii bay fahmeenoo siyaasadda Cergaabo lafteeda ayaan wax ka tilmaamay marka waxa arkay magaaladoodii oo aan gooni aan u qiimeynayno oo aan doonayno in iyada lafteedu ay horumar ay
samayso ay samayso haye de in badan bay wax daba ordaysay hargeysa iyo burco moog haye marka gaaraysa haye imika wadaa la sameynaya ilaa isku xidha ceergaabo marka dee dawooyinkii halkay hargeysa caafimaad ku tegi jireen waxaan ku dadaali doonaa in uu yimaado horumar xitaa in dowladda wax laga suga maahay in xitaa qurbajoogta reer ceergaabo ay isu tagaan waa simple isbitaal baa la samaysan karaa dawaa la dhigi karaa waxaa la samayn karaa haddii laa kureeya iskuula fiican baa dhisan karaa marka waxaa jiri jirta beriga hore intaanay qabyaaladu soo bixin 3 magaalo lama gaari jirin reer baa lagu tilmaami jiray reernima degan ummadda lagu wada degan 3 magaalo waxa weeye jigjiga waxaa lagu leeyahay ninkaasi waa reer jigjiga marka reer jigjiga aad bay isu qiimeeyaan nin reer jigjiga bay noo yimi aynu sooriye siino aynu casuno marka dee reer jigjiga qabiil maaha qabiil baa laga dhigay waana wax fiican waxaa jira waxa la yidhaha reer ceergaabo waxaa jira waxa la yidhaha reer cadmeed marka imika waxaad tegaysaa malaysia nin waxaa la kasaa reer ceergaaba marka ceergaabadii baa ku qiimeynaysa kuma qiimeynaysa marka ceergaabo waa number 1 waxa wata magaca la yiraahdo oo reer ceergaabo hadduu hargeysa yimaado iyo hadduu burco yimaado waa reer ceergaabo marka waa jaaliyad isku xiran waxaan just anigu waan ku boorinayaa qurba joogtooda ayaa very slow xogaa yar dhaqday xogaa bay waa habsan isku habsan xitaa imika heesta reer ceergaabo sameeyaan intaan music saarin ayaa hargeysa laga heesa markaa reer hargeysa sameeyay stule waa aad buu dhaqa marka waana meesha roobku ka bilaabay hadda intii abaaruhu ay dhaceen oo meel duceysin xaaji aadan furloob iyo dadku duceysin baa ka yimid midda kale ceergabo haddaad dib ugu noqotay dugsiga la joogtay maybe ilahay cumrigaa dheereeyo 120 baa laga yahay da-dooda waa barakeysiy markaa meesha barakada le inaguna mahadina aad iyo aad baan reer ceergaabo ugu mahad celinaynaa waxaan sababta oo u diranaa iyagana reer hargeysa reer duqa reer muqdisho reer baydhabo reer hooyo caddo reer bakool reer kismaayo in iyana ay noo soo gudbiyaan barnaamijka sida u arkaan iyagoo video kasoo duubi karaya dhowr qof oo kala aragti duwan inta aan kaga gudubno hargeysa tegay ونود هرجيس هو حوش وسيبرس الله ما المرد واحد اسمه حري حبيب المقدش تجي وقت هو السكرتي مدحونا ربع يا هو عشان كذا سنافته مقدش دي بابا اي لغات والله انه ما تجي موس ما كسو يبسني درس ما كسو تاب بارو تجي بارو تجي وقت دي تم مقعد نور كتير ويلا من معلنا oo maamulka xigeenka ka iskuul kamid iskuulada magaalada Hargeysa ayaa magaciisa waxa la Ahmed Maxamed Maxamuud Sinaayi wadoo madaxweyne marka berigi ay tobi dhulka la galay ninka niyar buu marka maadaama la yiri Ahmed Maxamed Maxamuud Sinaayi xilligaana malaha dee SRMT gudoomiye iyo ma garanayo kulli gudida soo ku jiray Sinaayi ayuu busna dadka wax u sii dareen Sinaayi ya marka ninkii uu baamaan iyo tol lacag ganaax oo ay traffic nin ganaaxday ay musaadka lacagta leedahay sad ugu daray siyaadku waxa ka soo baxay Ahmed Maxamed Maxamuud Sinaayi CID door ay isku yaacay والله مدحويني وصدري جناح ninkii baa telefoon loo diray iskuulku baa loogu tagay ardaydii iyo maamulkii wixii ma dhablis ولو دي isla meel laga soo galu garwaay inkastoo ninkaan kala sii daayay oo loo xiray Sinaayi la magacta waxa ku dhacay argagax badan aakhirkiina madaxweynihii ayaa loo geeyay ninkan waa samiga samiga waxa la yiraahdaa qofka kula magacaabo kuwe balorta aan ku tuso Sinaayi iyo ninkii Ahmed Maxamuud Sinaayi labadii Sinaayi oo wada taagan madaxweynaha dusha dhawey madaxweynaha isagoo ma ogeyn waxaase كور خليل وحاكمه قبل فكروا اسك ترافيك بس كده بصراحه يدي ولا اسك ديس ايا marka arki ma ka fikir waru ma yuu dharsay in arintan ay ku noqon doonto dadka in the host host socda marka sax dabeetana gabadha halka ka tagtay oo friends nahay ayaa jirtay oo la yiraahdo Aamin Waris Maxamed Balada marwada koowaad ay la magacta laakiin last name magac saddexaad lama magaceedu waa Aamin Waris marka shalay la waxaan ku yiri Aamin Waris iyo warano meeshii Hargeysa ka warno rooba ka daayo wala fiican na roobka hayda bayabaan meel baqan in madaxweynaha uu alla xidhay marka sababtu warwaa ninka wala sii daayo
أيامها ما نصاب إحنا نفتين لو ما لسه كنت روح أسرع ولا أما عملوا سبيل لبح يبدأ الروح العمود ولا يمرسها دي سير الله سبحانه هذا الحاجة اللي بيصير ما كان حكومي عشان يوحون ما خلاص كلام هي ما هي الشركة اللي بركة وشركة كنتي فضود لكن آد معنوي وسمعني صح أدين كانت هي ياسين هي واحد سنة الله يلعبه عبد الله إسماعيل السيد هو من الحكومينكي الحكومة معه لكن البور وجوا وكاري ضد باور اسمه والله هي marka liiski magaceeda raacay waqti هي boor ma la xiriirin boor ma soo haray ka magacaada هي marka waxaan dib ugu celiyay telefoonkii مسؤولينta Soomaaliya هي waxaan ku weeri walaal dib markii magaceeda la sax xiriyo annagu wada shaqeynaya nin la yiraahdo isagana Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Sayid ayaa jooga boorme هي ya xiro ninkan algu tuuro marka saymaysa waxba ku xirmeen هي وكي هوري سودي كنا هامد الحين أي مجلس كحياري هي إني كان اسمه الحين كحياري كمجلس ميان كحياري ما يبالي هي نكاش أكون درسمين هوش يسمع واحد يقول بركة هي محمود جونسون عدالة در تقولي إن عدالة يو غيب واحد غيب سنة ما ها مفرش لك غيب سنة يو يجوي وزير يحل دوانو لكن السنة ما هو صح مركة اعتماد حتى هل كان دي واحد جحده ولا كان واحد جحده وساس دي هل واحد سوداء السوداء مركة عبد الرحمن السيدعي يسوي حسكت شباب بورميسي إذا ما عندك إن حلو ولا تجي والله وانا عجيب نكان وافهم سمع ويا بني واحد يقدر بورم ما دام الجو waxaan iyadana aan isha ku hayay maalmahan xisbiga wadani ayaa tagay oo Cabdiraxmaan Cirran uu ku jiro marka oo madaxweyne gudoomiye ku-xigeenkiisa uu ku jiro sabab gudoomiye ku-xigeenkiisa markii meeshii la tagay ayaa waxay dhiirigeliyeen hada jeer sportiga marka dhalinyarada ay sportiga ay moogtay dabeeto 7 kooxood baa ka jira boorame 7 kooxood oo kubadda cagta 7 kooxood ayaa dad ka socda xisbiga عبد الرحمن عرق وطني عبد الرحمن ما لفتي سنة هو وطني قدومي كحيل سنة ما لكن حسب حركة السنة دي ماشي كان مضح هيا أرضية واحد دكان سبورتي الويني ذاك سبورتي وحيدا عندنا دريس بدلوا يعرفوا لما يردوا تطبقوا حد قالوا يبنون كان يجي الدكان كلها حل قاوم مغلاه بسوق مغلاه بوجود ليش غلاه بوجود كان يجي ما يقدر يقول نكي ومقيا هرجس جرا وحنا والله صنعنا والله حلينا سجل في سنة هي marka waa beenabuur baa leeyahay ninka lama hadlo alaabtan baan qaadanayna kadib in lacagta ayaan bixin doonaa diwa deyntii Soomaaliyeed deyntii oo iska nidaamkii waay yarkii buugi ku qoray in de alaab fara badan oo dharka bedel u yaaran ina qaatay dharkii biciyar ku galiyeen dabeetana oo khudbadayna waxa sportiga miirigin la dano xisbiga wadana ويصوروا عيال دليل يو دريس كيش markii sawirada dhamaadeen ay bilaadeen Idriiski dib u bixiyeen alaabta baciha ay ku soo qaadeen ay dib u galiyeen wuxuu ku leeyahay alaabta wan maaha ti asalka waa China asliga ma marka mid asalkii baa noo imanaya wadda shirkii alaabta qaatay تبهلوا هي شقيت هي عيال سنة هي ألعاب كله أي حاجة يسوي صوت مركها هي هو صور هم يقول لي يمكن مركها واحد صوت يقول صورتي وإلى دين مرة يستبق دينتي ولا لا يقول مركها نيك الضيّر تهذي شيء ونيك الوجه سنة على ضغط الحسب على كسر الآن الدولة كسر الآن هذا شيء روح الوجه سنة مسكين مسكين فورله مسكين يلا نيك الدكان غير هستنر كهذه السنة ما تفرحي يصير أنت سب الضوء بلاقات وبدلدي يوم صورين لو سعودي لو حاجة لو كذا اسمها يسوع نبكي ذا أنت صار ينبور من كترس هي بور من عبارة كتيرنا ما نبكي مال بشر صح بور من بابورتا قاعد ليه بتشارج كمان دكان هذا ملا خضار تلوي بيه وحكى سعر هسه يرجيو يو نمعان هلا هي دقال كي حسبي قال اللي يرضى جيس أيا ولد يجرا ولي وصل هي مركا
دقال كان ما انتظر أنا صافت وصافت علينا ها لكن مرة عن هذيك يدوينها بقى أنت أنا أقول قلت عم تصير لكن حسبك أنا كنت ما من بقول البروف كنا صح أو قدومي حسب الوتاعية أو لكن عيالك نقول ريتشني فيديو كليب كان يرضى dhammaantiin guddoomiyaha iyo madaxda xisbiga iyo dhallinyarada ciyaaraysa iyo ciyaartooyga iyo gebigiinba assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa goor gaaban waxaan ognahay faa'iidada ay leeyihiin ciyaaruhu joogitaanka iyo imaatinka guddoomiyaha xisbiga iyo madaxda kale xisbiga iyo annaga dhammaantayo waxay tusaysaa sida xisbigu u danaynayo ciyaarta sare loo qaado dhallinyarada la tixgeliyo si ay u ogaadaan faa'iidada ay leedahay looga gaadho xisbigu markuu talada ku guulaystana waxa uu yeeli doonaa tallaabooyinka ugu horreeya oo qaadi doona wax noqonaysaa in laga qabtiro dhallinyarada ciyaaraha عادي ما الكي سيد الله يا سيد الله سوق اللي سمع ونقول عبد الرحمن ورجل كتر سنة هالكم حسب وضرب بدل غادر ورجل هالك أي ملافسة على ترمنا ورجل هالك والله ضاع دور والله ضاع كان الشينا يا عاب خلاص جينيس كسر تايم كقدوم ليه واحد شرط يرجع يو هلا أي أقول يصير ريبور هي حسب جدا احتجاج جسم أي قرف مفتاح هي أنا مداول البلوطة ضدك بتشاشك وراك لا دوبي لكن شري واحد كان على الماشى دقيه الجيس كان يجعل رنشر الماشى وقفت ونهان أو إنه يسوس بده شيء دقيه قيس ما دام اللي يديها الجيسة ما دافع لا بصار حسين سؤال بنودينا يا قدوميها شيء waxaan weydiinayaa waxaa tiri xuduud male fanaan yajur muqdisho tagto hadiyaa geeska ka saaray eeg waa waxaan isqaban karin labaan isqaban karin kulli isma qaadsiyo waxaan doonayaa inaan yar ka hadlo hawshii xalay toole maxay yaraanay fanaaniintii la lahaa waxaanu ka saarnay xidigaa geeska waxa weeye horta xidigaa geeska maanu garanayinba markii hore waxaanu ku baranay ama na barayna waxay ahaayeen dee labadaa fanaan anuu meherada waan haystaa نبي كان دقيسني نوعان سمعت هذا بيجي ترى الله تنا صوته حيوان يزيزي مركا حدقة جيس ما نقرنين مركا راعي عايم لبضع نبام حيوان أنا نبري كل صومالي ذا حتى الله فتمير باكوتيرا وحوي حيوان أنا ده واحد الله صارنا ووحجرون أما هو ده حيوان أنا نعيب لاقبه ده كان بكون القبل أوضل بسم الله الرحمن الرحيم وحن كهذا يا متقنا حدقة جيس كأو كوكعي وحنا فنانين تلوجو برن سومالان waxaan u sheegayaa maamulka xidigaha geeska sidan waa loo dhaamaa in ma taqaana ay xabsoocaan ciyaaraan gobolada waxaan ka hadlayaa arrinkii xalay soo saareen xidigaha geeska arrinkaas oo ah inay fanaaniin ka saareen fanaaniin ugu soo daray fanaaniinta ka saareen waa kuwa nabaray xidigaha geeska fanaaniinta ka saareen waa haldoorka fanaaniinta ummadda Soomaaliyeed يوسفنا أفرتبا وأفر فنان أو حق مسرحية أما حق هيصها أما حق ما درت لجيسجا كونك سنة حتى لقى بلا فنانين تنقول حقيقيين كبت هذا هستيدا ما نتعاقرين inkastoo ay jiraan aragtiyo kala duwan oo ku aadan arrintani ayaa durba waxa boorama ka bilaabmay ololaha jooji dhageysiga kooxda xidigaha geeska oo si adag farta loogu fiiqayo inay bartilmaameed ku noqdeen shakhsiyaad ka soo jeeda deegaanada galbeedka igada qabiil oy dabar jareeda qabiil oy duleeyada igada qabiil qaran ideeqeeda waa xudur gumaysigu nagu dageeda dhiigdaatay kala daadsanaan igada diifiyo darxumo waa halkay daagtee igada qabiil qaranba igada qabiil way dabar jare igada qabiil way duleeyay igada qabiil qaranba igada qabiil way dabar jare igada qabiil way duleeyay igada qabiil qaranba
soo waaya waxaan eegi doonaa intii laabsalaha ku hadlay ee uu xisbi gooniye ka dhigay inamadii fanaaniinta ee uu xoogaa kala yara geeyey yurgeeyo iyo ilaa iyo hanad iyo ina cabdiraxmaan dheere hodan uu iyana ku tuuray ayaa waxay keentay damage in xitaa riwaayadooda la geli waayo kooxda xidigaha geeska ayaa burcad tagtay burcad oo tagtay shiid baa laga daayay hawlkii wareesh dhaawac baa loo geystay darawalkii iyo mid kale isna waxbaa gaadhay maxamed bk ayaa horta balka hadlaya daawan fanaanka burco markaan nimi waxaan rabnay inaan show ku qabanno qolada maamulka waan la kulannay si qurux badan bay noo soo dhaweeyeen showgiina way noo ogolaadeen inaanu ku dhigno meesha iyagoo habeenkii hore naga joojiyey balse xalay markaanu siniri gala ayaa dad bannaanka joogay ayaa gaadhigiina naga jajabiyey annaguna gudihii hudheelka ayaanu geli weynay saa darteed baanu u soo noqonnay iyadoo waxna naloo geystay gaadhigiina nala ka jajabiyey wallaahi ka dadka naga soo gaadhay wuu fudud yahay laakiin kii gaadhiga naga soo gaadha aad u khasaare badnaa inkastoo darawalku naga sigtay laakiin kii gaadhigu aad buu u burburay maya bulshada reer burco aad iyo aad bay u mahadsan yihiin laakiin waa wax loogu talagalay waxaan saa u sii ridan maaha laakiin kadinka markaanu isniri ka gala gaadhiga gala gudaa gala unba gaadhiga muraayadu way noo dalacnaayeen dadkii inaanu qancinno oo fanaaniintu ay qanciso u heesto oo hawshii la dhammeeyo ayaa loogu talagalay kabacdi maxaa la heesaaba gaadhigiiba waa nala ka jajabiyey naflacaari baan kula soo cararnay markaa hudheelkii يا قولي ولا waxaan markale ku celinayaa fanku inaanu qabiil lahayn inaanu xuduud lahayn inaanu siyaasad lahayn ha laga saaro xidigaha geeska oo inamo iyo gabdho wanaagsan oo qurux badan oo codkoodu aad u macaan yahay waa in la gaarsiiyaa darajo heer in ay ku heesi karayaan afkooda Soomaaliga iyagoo u heesaya dad Mareykan sax dad Ingiriis dad Norwegian waxa wali ka maqan fanaaniinteeda in sometimes cadaan ay u sameeyaan masraxiyad culture-ka Soomaalida iyo culture-ka Afrika laga hadlayo oo fanaan inta lacag fiican waliba la siiyo dad aan afgaran u heesi karay fanaaniintu waa inay leeyihiin awood ay ku tegi karayaan iyo xorriyad jigjiga fanka Soomaalida meelaha ugu wanaagsan waa number 1 Djibouti ka sii daran marka fanaan sida reer Djibouti ay fanaanka u yaqaanaan waa in reer Hargeysa iyo xidigu u yaqaanaan sida reer Jigjiga ay fanaanka u yaqaanaan waa in reer Hargeysa u bartaan sida reer Muqdisho ay fanaanka u yaqaanaan waa inay u bartaan reer Hargeysa marka la xidigu aad male dhalinyaro laakiin waxaan ka hadlayaa waa maamulka laabsalaha waa inuu u dibciyaa dhalinyarada oo aanu eegan maslaxadiisa madaxtooyada imika madaxtooyadu markasta u fiirso ama wasiir xaashi baa la jooga ama wasiir kale oo ka tirsan ugu cud meesha maartay madaxtooyada ayaa la fadhiya inay madaxtooyadu fanka soo faragelisaan oo wax laga wanaagsan oo la siyaasadeeyo haddii kale madaxtooyada ku dhaw waxa tiraahdo xisbiga afraad ee doorashada isla ka qayb geli karaya waa kan xidiga halkaas ku biirba fanka waa in la mideeya dhaqanka waa in la mideeya heesaha iyo suugaanta Soomaalida waa in la mideeya waa in laga daaya kala qoqobka iyo reer hebel iyo gobol hebel labsalax madaxtooyadu waxay u dhisaysaa guri adoo nin guri loo dhisayo miyaa dhalinyaro odhan karaya xorriyad baa leedahay oo heesa guriga bortugal marka xidigooda maamul kala samaystaan waxaan jeclahay barnaamijkeenan gadaashiisa xidigaha hees ay leeyihiin anoo qiimeynaya fankooda ayaan kusoo gabagabin doonaa markaan barnaamij ka baxno waan dadka kusoo dayn doonaa innagu kama soo horjeedna xidigaha kama soo horjeedna fanaaniintu inay walaaloobaan oo odayaashan iyo shacban ciyaaraya siyaasadeed ay faraha kala baxaan intaas ayaan kala baxaya marka videogana waan daawanay BK iyo sida reer Burco ay dhibaato u gaarsiiyeen reer Burco waanigii hore ugu soo qaatay fanka waanigii Yaasiin hadda ka horeeyay haddii aad fanaan dhakhal oo Burco ka soo haysa fanaankaas aad buu macaan way Burco dhagax ku dhufataa waa dhagax kalgacayl ninka jecel ma dhakhal cidkiisa kala hadda cod xuntaa Burco dhagax ku soo turmaya labada magaalada dadka shiida
وبرعي قرن أي قرن لما كان أروستي أغلب شيء يقولوا يا قشان دي قبل أي لا من هذا الشيء يا قصر يا لك حنين والله سودوي والقتي يدور لبورة ولا هي يفكني على هي بطلع مرتين هي horta madaxii la dagaalanka burcadbadeeda ayaa shaqada laga heli ninka waxaa shaqada laga heli sababta aan mas-uuliyiinta u eedeeyo iyo maamulada xooyan waxay diidan yihiin weli raacaan nidaamkii dawliga ahaa systemka dowladnimo inay raacaan bay diidayaanoo mid calaa misaag maskaxdooda ayay rabaan ninkan waxaa lagu xidhay idaacad la hadla wuxuu yidhi waxaa soo badanaya maraakiibta dhalinyaradii iyo dadkii kalluumaysatada ahaa baddii ka arbushayo oo shabaagtii ka tuurayo oo bam ku qarxinaya xag hoos oo kalluunkii soo ilaahay bacas ninka hadalkiisu waa dhab wasax waa run laakiin runta soomaalidu ma jecla beenta jecel ilaahay waaya berdhowta boosas waxaa dhacday kalluun iska sabaynaya oo dhintay ayaa soo cariyay kalluunku wuxuu israac markuu guurayo millions bay ay isku raacaan moogta millions markaa reer boosas intay tagaan xeebtii ay bay dambiil qaataan oo halkii laga iman jiray 10 xabadood 20 xabadood oo galgalan kuwa galgalanayda weliba galgalan isla wanoli ay mad ku shubanaysa ku iibinaya waa mataqaana kalluunka waxa soo eriyay waxa weeye xagga ugu hooseysa ku nool yahay bamkii la dhigay ayaa ay soo boodiyay ashabaab baad ku jirta badda hoosteeda ilaa wadiga arko Soomaalidii dhibaatada ay ku hayaan xayawaanka dhan oo ka guuray Soomaaliya wax ma joogo ma joogo mid walba ka caaday walaga yac bisadii ayaa imka dad bisad istiraahid oo cunay hilib tu sida markaa tahay ay isleeyahay waa bam kulli aw lagu soo boodi hada ka boodisa marka ku gartay Soomaalida sida waxaa tahay waxa la bam kalluunka wadiga saas ku saaraysa waxa soo maraakiib ninka ka hadlayna shaqada laga helay soo ma xasanto shaqada laga helay Abdul Maxamed Algaas iyo qaar kamid ah maamulka Puntland ayaa laysanada iyo ruqsadaha siiya maraakiibta waxa sameynaya charfka iyo waxa leeyahay qaarkood iyaga laysanka ku geeya qaarkood iyaga sheer ku leh oo kalluunka la iibsado ka ganacsada marka ninba xoolihiisa taabato waqti weey ninkan gudoomiyaha burcadleed ninku hawliisi gala marka hawliisi gala ninka shaqada goor ma laga yeeray Abdul Goor shaqada keenay soo diyaar saaran Abdul Tabaas inuu shaqeeyo xitaa diyaarta soo samada ma bila tani samada laga xusay inta qof ee samada laga xusay ya Abdul cirka soo maray oo ninka kamid waxa kamid nin Suudaan oo ay Suudaan Maxamed oo reer Puntland oo imika fadhigiisu yahay Geneva ayaa Suudaannimada uu ka qaaday soo hawada ku jira marka fariintu baa tii madaxtooyada baa wuxuu sheegay Suudaanka la magacaabo Suudaanka waxa ku tilmaamay Suudaanka ugu horeeyay ee iyadoo cirka la maray la magacaabo imika ninka cirku maraya Suudaanka aad u fahmay waxaan kaloo xasuustaa in Cabdiraxmaan Jaamac I think oo wasiirka kalluumaysiga ahaa Puntland boosaaso ayaa shaqadii isna Abdul oo diyaar saaran ayaa isna shaqadii ka saaran marka ninkaas oo soo kacay ay taayis iyo gishii suudkiyo gaari ku galay wiil dhalay ayaa Facebook galay marka soo arkay aabihiisa la kacay wala nidaamkii dowladda soo kacay تبى أب نقول هتيجي الحفيز كنشوف شغال ولا يسار وحاجات بارت فيسبوك تبى تلاقي أجازة من التويلة أي تلفون ده أجازة باين وحول حالي مرة شفر بعض من السكوش عندي وسير وحول السكوش عندنا كل يوم قالوا لك عايز كتشوف قول قاعد تشوف ولي محل يقولوا واي ورد الله يصدره والله في دول نمر الرعاة الله يلاقوا نيو وزارتي هي بتكون رجلس انت اصبر هي بيتلا جرت انت waxa kala jirta madaxweyne Abdul Maxamed Algaas su'aalo ku soo maray Dubai iyo Ethiopia war cusub ka hada war cusub khair xadig wuxuu ku leeyahay Ethiopia ayaa Jidlaanbiya inoo dhisaysa ya war ajaayib wey
iyo dekad iyo hawl iyo wali Ethiopia Turkiga gorwe Ethiopia horta laga jiro meesha ya Ethiopia horta laga jiro ya ciidankii wala soo dirbayso arinka madaxweyne dadku ku khudbadeeyay dibadda buu aaga wala saag aye Soomaaliya marka tira Ethiopia loo soo socdo quruusi qabanay aye dagaal u diyaar dagaal u diyaar Ethiopia ku soo wada ya leen ayaa ku soo wada ciidan maqaarsan sheekooyinka inta badan shacabka dee lagu wada daaliyo marka Dubai la soo dhameeyo oo Sacuudiga la dhameeyo ayaa xiloo keenay oo beento ay soo xigay ayaa markii wax kula galaysa Ethiopia airport inoo dhismo ya Puntland waxay doonaysay in dekedeeda ay maalgashi ku sameeyaan oo la DP World oo iyaguna berbera ku sameeyay way heshiin waayeen weli saami qaybsiga iyo habka maadaama ay berberana ka dhiganayaan saldhig qoladaas xoogaa malaa waxay la noqon weyday in uu isbixin weyday inay meel kale oo labaad Soomaaliya isticmaalaan marka cadowlinu waa ka dhamaan waayay xanaaqi ayuu markaa ay la gasho Ethiopia la gashay xanaaqi uu dib ka saxraaqay marka Ethiopia hadii ay hal iskuul ku dhisto aday ka go'anta ciidan dul saarsan halka iskuul 200 ciidan gargacay soo dhigay iskuul ka saarana nabaray taas wata ni waxa jirta wadankii de horta Robi waa ka tagtaa laakiin waxa dhacday abaar aafisay ummadda Soomaaliyeed wali way jirtaa ma dhamaan yaa la muddo hadii roob ceergaabo uu ku doomo hargeysa uu ku doomo in hawshii uu kartiyo okay wafdi baa xilligan dhawaan joogay Dubai uu hogaaminayay gudoomiyaha baarlamaanka Ahmed Al-Hashi Puntland dabeeto ganacsatadii reer Puntland ee Dubai joogtay ayaa casutay عشان عنا بينا وعشان اللي جاب سنة عشان اللي جاب سنة الدنيا تتذكر ملي لكن واحد جاي ما الدنيا وعشان أي كيف درتي وحده يوم خيالها هو عشية ده كله ما هو عشية أي خيالها بس كده كده بينا أي قريها هو عشية ما يلي ده حاجة هو عشية بدأ مركب دشي هي markay dushi oo shaah lagu kariyo calimaadii caydid bay u dumisay ya dabeeto waxa la cunay cunto deeqi karaysa dadka ku abaarobay ee abaartii ay waxyeeleysay ee maanta banaanka taagan reer Sunujiif Dangaroy Xaaji Khayr sida u socdo eedaas oo dadka ku nool ay cashada ku filan هبا عشية كيف درتي مركب بها فلان لكن إني دتكي بعنا أصلا صوران وحنا وافضل تاسع حقا تاسع ومرو أنا عرفت إذا بدوني لين عن تذا سور كذي كان لكن واحد دوني مركب كي يخطب بديه هذا ذي كان عاي عشرة إن عندي ذي لهم صوب بندقو بدوني دتكي قاعد تسمع إن عشرة كله أنا نوصي توصل أتصل لكن واحد ليش كفكري إن قدوميه ولاده وروحا وخرج شغل تكون بحنسن عشان يمركب لك ريستو نقدر ولما نيجي ناخذها مركب وحكوا لي تم عشان هصص أنا لا أقول أنت واحد خرج الله بحني إن لعقتها العيسار عضو دستان أوكي واحد اللي هذا استسلموا وعجيب قال عسل هي بتلا أنت استسيان وإسكان سيان ما ملك بتلا قدوميه وهرك عليه waxaa in imika hadii loo tago iyaga oo la yiraahdo qaaraankeena aan u geyno gargaar dadkeena sida ku bixin wadad adiga madaxweyne ku xigay baa hadii la yiraahdo oo isku dilayaan mid walba ku doolar bukeena dadkeena wax ka sii ma garanay waxaan la isku sawirayo la isku sayo ayaa ka waxay iyaga xaqooda kaga qiimo badan tahay in dadkeena wax la taro way qoladaana horta sawirka aan daawado casho sharaf lagu soo dhaweynayay gudoomiyaha baarlamaanka Puntland Ahmed Cali Xaashi iyo golo wasiirada uu hogaaminayay isla markaasina ku sugnaa maalmihii ugu dambeysay magaalada Dubai kulankan ayaa waxa soo agaasimay wasiirka hore ee ganacsiga Puntland Cabdisamed Yuusuf Maxamed Abwaan waxaana uu kulankan ugu talagalay inay ganacsatada iyo isarkaan wafdiga Puntland ee ku sugan dalkan isu taga Imaaraadka Carabta gaar ahaan magaalada Dubai kulanka ayaa waxa uu ka dhacay doodusheed ومركب دش بليران بتوصل ضدك قاعد معلوش شغل بتاعي سوي كل ضوايا ولا حاجة
عيارة تقرأ تبارك الله إن السورة السمية ما كسر عن هذا وين maamulka waxaan tagi doonaa magaalada la yidhahdo belegubadle feedback aan helo maarta ayaa dadka qaar waxay u dhahaan cali xaraare wuxuu ka helaa belegubadle laftigeeda kaan weli belegubadle maan arag horta magacaan waan ka helaa magaca aad ila qorta waa gobol la ilaaway dhinac laga siinaaya magacaabo gobol ahaan magacaabay daadmadheed dabeetana gobolkaasi waa gobol la iska ilaaway horumar badan kuma jiro dadka hawlwadanada ee ka shaqeeya ama barasaab ha noqdo ama customiska ha noqdo maba yimaadaan hargeysa iska jooga maba yimaadaan marka barnaamijkan maadaama uu yahay yaasiin oo barnaamij toosina oo nidaamka dowladnimo aynu dadka ku dhiirigelina hadeeja waxaan kusoo qaadan doonaa belegubadle hal tusaale customka waxaa haysta nin la yidhaha cabdi jaamac cali waa nin dhalinyara waxaa adeer u ah maxamuud xaashi madaxtooyada ninka haysta ayaa adeer u ah customka waxaa soo mara ugu yaraantii 2 baabuur qaad sida oo dhinaca Ethiopia ka yimaado oo u gudba 2 baabuur midna wuxuu geeyaa burco midna Ceergaabo ayuu jaadkiya wala si cashuura markuu burcato warqada cashuurtu u tusaya belegubadle la soo cashuuro wali okay birta laga qaaday su'aal ka Ceergaabana ka daali وصلوا كان اوكي نيجي عشوائي قاضي هرجسوا سكتي هرجسوا تيجي بالقبلها وحبك ما قال حسن ترى لبادي باور قاضي يكوا سرهم وضع يكوا بصل وضع اي ما هي عيد كعشوائي تبي وياه قولوا بصشن يسرهم كانوا بس كسي جوكر قاضي وين ما انت لك الجوياتي اختار مركي وياه اي مركا فرق جدا كنترول عمل سويستان أي مرة ورقدي بالقبلة يعني شرط كان لأن كي كستن كان شوي عدي شامع نيو مغيه أرجس جرا توبة تبلي أحطه دافته ونسوق قويسي كنترول بالقبلة تقصير أم جناح أي بالقبلة أي صار أي بالناس بيفك قويسين كي كنا عرقانا سيدي أي الله قال جناح لا بالصار مثلا واحد عندنا صارية بامورتي أرابتي كانت أي عشرة وصلت نبقى واحد بيسنة لبدي باورة كذا عن كل هذا سحر بيستاني عنطنا بالقبل يقعد عدبين ما كان الدولة هذا قاعد نيو حكى الله يشفى سنة اللي وين جيسا لكن هذا هقول أنا يروح وهذا هي أبتوح الدولة هقول ضمن أحد عشر سمعوا لنا بسوء غير سوء ضعفتها لكن ده هدول ليش بقي شغال محمد حاشم كريد بقول غير سعادة وحورنا يا والله أقول كان غير بوها عد شام نبيه نيجي عد شام عيب بالقبل كان الدولة نيو كاستمس كاس وعشرة سلاي بالبرل شوفتي وجه يعني جامعة دكتور نمبر آل ولو عندي السودان الصومالية هي السودان تسوي بربتي مركب سلامين لابتي عندك عصارين سيدي قف كلية جواك مركز سيسي باس يسوي حقري قال بعد ما كانت البحاية تتوقع عليه حلو كده وصلنا السودان طب أرضي الصومال باكو سوري شوف ساكو سارق عنده البحاية صاد مدر خميس كنت تشيب حركة كلها كالجرمس ميدا بكنا مرك عبارة استشهور ولا سوى كلام مركا لا يرفع بدل أي كفة السودان دي تحريم تجاه أي السودان كذا السودان بيكون هذا عاد هي تبي ترجع مع هذا دولة أساسية بيقارقوا هذا وفعلي مين أرتي التحريم ليش أو جامعة كبحي أو دي بيقول نقولوا دولة دي حس الشيء كتب كذا ماي وين على يده مدع هي مركا وراي السودان أنا ما سكتت هي وحنا هنا يلا تركيا الصومال ما قالوا تقول بقولهم نورث أمريكا توم حكت اللاعب وحكت اللاعب بدارت رجي بدار بعد ده والله صاحب الله أورد نقول هي المرة فود سعيد فود وي هي رجي بدارت أيا قبليه دي هي قبل ولا بنيك سبرتان تلفون برك والله ما بعرف وواحد ودي مش بس هاي مو اسمه بدار بيان لا وساش بورس ودي قال لك ما بدار تكبودي دولة تركيا أي رواتي الصومالي بدل
iyo turkiga soomaalida aad buu jecel wadada meel buu fureeno waa raqiis oo loo beerayaa afar bilood kadib buu tiigu soo baxay tiigi ajay hay meesha adiga aqaariyo adreeskan sina ما أدري سويها بس السينما مو هي لما يردوا بصنعت هي إما محلو قصة من السلطة ضدك تركيا اسكسو دوي اتماه بيري إذا تبي مركب صبح معي عندها برسل عندها النمبر برسل تقولي بكرة أي حاجات في شخصية وصلتك ما فير يلا دي حسبي كلية وفتية معها وحوي تركي وتري حوش واسعد تبي بيت هي dadka halkaas ugu tilmaamana ayaga halka le hay waa ka soconayna hay wali waxaan ku guda jirnaa barnaamijkeeni kaftanka siyaasadda oo dadka aynu soo tubinayno magaalada Minneapolis sax yasino dowladda federaalka aynu eegnay wasiirada cusub hay horta farmaajo ninka la wuxuu u dhaxeeyaa laba madfac koob iyo 20 madfac waxa u rida Kenya koob iyo 20 madfac waxa ku rida Shabaab وما فعجوب ليش بلوا على وياه ليش بلوا على بربع المجوز هي سيدتي هوري هذا الشغل كذا مات هي وسيرة العصبة وحكي كرلين كارين ماشي نقول وريق هي مدفع ولا كبقينا أنا وباشي وريجين ماشي يكون عليه ومن واحد سكسر ويا دول تسير الله صار تسير نيو هرت ويا يعني لا توصيل بس هي يوصل كحيانا بدن هي الصومالي مركي فرماجة قصدي وحلا عاية قبيل كيو بابا وقتي الصومالي عندها يسقصت مراها السوشيال ميديا بانو قالوا والله dadka waa kuwa midoobay walaaloobay sar waa bahday markuu sidii soo magacaabay ay wax bilaabay hay reerkii intaasi wala reerkii bay dib ugu noqdeen jirada ka sabay hay wasiirada markaa noqotay dawladda horta waa dhalinyaro waa sax anigu oran maayo reer heel baa ka maqan reer heel baa ku badan cidda sax ku badato waa wasiiro dhalinyaro oo wax qaban karaya ina baa ku jira dhadhaab ku dhashay ku dhashay Kenya oo wasiir qaxooto ku dhashay waa ka wasiir ما شاء الله ما شاء الله ولا بقالين هي كم أنت وزير وسيرة الدورتين إيش ما تسوي نسير عقاب ينقيرا متر والسعودي لحين بعطنك وزير بقى لصدق يعرف المشي لكن نمبرك أبو بدر يعني بلوده يموي ما شاء الله هي وهرك 6 ساعات شغال كره هي نقول بشهادة اسمه ستو جامعة وشيكتين وكبحي هي تليفون مدري سوبر والله هو بني هي مركز جامعة بقى بلعبي ويحوا والله صح مهم بقى هذا جامعة دلو كبحي وحوا عني طفل وحوا عني واحد برشلونة كفع وحوا عني ودني دي سايس رسم مركز أنت أصلا واحد هو هذا فعلا هي دولتنا نود إنه برمش إنه كي كفتك السياسة كي السياسة اللي وفر غير معها وكين كفتك دولة حد نمط ما دولة وحين سعت دولتي هي رئيس الوزراء يوم الحلول وحيد ولا وحيد رئيس الوزراء يوم الحلول يحوش واحد صدق سنة وحيد صدق سنة وحيد هي لما وزير وهوني يؤذيني وي وحاسس يسجل وسخبان باص هي هو مرسل دي نور ببيشيس ايا صودا كذا دور هي labadaasna way isqabaan waxa ku jira laba isu abtiya nin wasiira iyo wasiir ku xigeen oo ka walaashay dhashay ودولتنا waxa ku jira hal wasiir oo seedigiina uu yahay wasiir ku xigeen nin walaashay qabay ونمع marka waa dawlad xidid ودولت حيدوي هو يقرأ شو لكن هو حديد شهادة بروفيشنال شهادة يقولوا ما هو ده قبل ولا شيء ما قبائل بس يقدر معه نكنا لما يسقط نكنا ريال كذا صوت وشهادة قلنا ريال كذا صوت بركة أرجع أيها يسوون شيء ويا حمر إنه إمك دولة كوهتك منه ما أنا معارضة صح لكن إحنا نقول شيء نقطة سمعة إنه نقطة من كسر تلوث يدبك سمرة دبك سمرة أنا كقدم وروي بدل ما هيسمع الكتور نفسه هرب سكسر هرب سعودي واي
okay yaasiin uma maqashay dad badan oo tahriiba oo dhalinyaro lacag baa laga qaadan jiray $1,000 dabeetana waxaa loola jiray nin gafar ilaa qabsaday lacaga kala soo diray hawlaha imika bilaash baa lagu dhoofay bilaash tahriib haye wala xasalo dhoofay la yaqaan hadda soo imika dhalinyaro tahriibisa tahriibta ma si kale ugu sheegay haye waxa weeye dadka tahriibaya waxa ka daran kuwa tahriibinaya haye markaa wax soo baxay dad dhalinyarada ku dhiirigelinaya lacag ma haystaa may iska imo annaga ku tahriibinay haye dadkaas si kale lacagta u qaadan doonaan haye laakiin marka hore isaga waxa lagu dhoofinaya bilaa lacag baa lagu dhoofinaya hooyo wiilkeeda intuu tahriibay uu ka dhuuntay oo reer burca intuu ka tegay uu tegay boosaaso dabeetana waddanka yemen uu tegay ayaa doonidii u dambeysay ee lagu dilay 40 qof ee soomaalida ay ku jiray ilaahay jamiir raxmaas haye isticmaalka jirku haye sheekada murugada leh bal hooyadii wiilka dhashay in yar aynu daawan tahriibay iyo halku ka ambabaxay walaaleyna kan maxay tahay wuxuu ku tahriibay hadda wuxuu maqnaa muddo bilaa 20 cisha arday jaamacadda Burcodhigta buu ahaa arday 20 jir buu ahaa 14 sanadood ka mid ah noloshiisa waxbarashada ku wadnay 3 goor buu quraanka dhameeyay iminka jaamacadda dhiganayay farsamayaqaan 60 jir ku dhow baa dhalay xoogiisa maalintan afka saarna habeenkina jaamacadda u dhigtay subaxiina uu kuuriga noogu shaqo tagi jiray ayaa maxay tahay la dhaqaajiyay shahaadadii afraad ayuu maraya inta uu tahriib u baxay 3 jeer hore ilaahay baa gacanteeda qoray waan ku guulaysanay jigjigu 8 habeen ku xidhnaa oo kilalka shanaad baa qabtay ciidamada Itoobiya waa la soo celiyay mar wajaala lagu qabtay ciidamada Soomaaliland baa qabtay mar Hargeysa tolkii ku qabteen oo aan maxay tahay baa ku dirnay 3 goor hore ilaahay gacanteeda uu ku soo celiyay maanta wuxuu nagu sameeyay ilaahay baa subhanahu wa ta'ala wada wax ma jaraaba min la yiraahdo kaarkiina Hargeysa ayaa loo diray isagina wuxuu baxay boosaasay ka baxayaan carruurta maanta dhibaatada iyo aafadu waxay ka socotaa boosaaso weeyaan marka inanka iyagu maxay tahay bilaa ka habeen uu maqan yahay kaysow maxay tahay boosaasana uu ka baxay qof yar subaxii ka baxay oo meel uu baxay aan garanay inuu shaqo tagay inuu meel aaday habeenkii buu soo injiray habeenkii baan weyne habeenkii markaan weyne waan ogaaday inuu tagay oo aanu joogin bas dabeedna baadidoonkii shirkadaha iyo intii aanu ku jirrayna waxa naloo sheegay inaanu dee joogin 10 habeen markii aan la'ayn ayaa boosaasa naloogu sheego وأرين أدمر السماء سيدنا الله جميع الرحمن لكن حوي واحد بيانين النهارده بلاش كم من دون إلى نسجنا لك دولة الصومال هي دولة بوزنا وأحملها على التحريم يدتك تحريم هي إسرائيل يسوي مدن وإن رياضيا ودبقلان ciidamadu nabad sugiddu xafiisyada hoos u furan ee ka furan Garowe ee ka furan Hargeysa ee ka furan Boosaaso ee ciyaarta laga dhoofiyo sax waa xafiisyo si aad u shaqeeya waa rag la yaqaano telefoonada la yaqaano in la soo helo waxa ku qaadanaysa labada maamulba 24 hours marka haddii xafiisyada rag inoo qabto maxkamadda la taago nin ku dhiiranaya cid dhoofi ma jirto wiilkeeda eed male wiilkeeda intuu jaamacad dhamaystay ayuu meel ku shaqeey waay marka inuu iska dhoofo way la gelaysaa Hargeysa ayaa shaqa la'aanta dhalinyarada jaamacadaha ka soo baxa markay bakhaayada soo fadhiistaan mataqaan erey u lacbiyo yaasiin waliga hadda bakhaayada soo fadhiistaan laba dhalinyaro saddex dhalinyaro isku meel noqotaan ha odhanin adeer ma shaqaysaa marka waa dishay niga tasaa ku tiray aroortu ku tahriibay wixii murugahay ayaad ku istaagada gacan marka erey isticmaala wuxuu ku leeyahay marka tiraad meesha shaqaysaa ma suldaan baa ay maqan shahaadadu soo qaato ku shaqeyn maayo nabadoon iyo suldaan iyo oday dhaqameed ayaa u shaqeynaya oo wasiir buu leen u soo xidhay marka haddii uu soo bartay cilmigu soo bartay hadduu ahaa مثلا كمبيوتر واحد وصبر وزير كحرقها يسامح أيوة واصل له هذي أيوة إنك كمبيوتر صبرت حرقيه يقول حكي
halkaas u dhexgelaya waxa shaqada saay marka waasta bilaabanta wasiirada marka wasiir waliba dad u deeheed iyo qaraabo iyo qabiilada waxa ay ku shaqeeyaan ku jira ay ku soo daraya wasaaradda ama hebel oo hore telefoon u diro inaan ka ku soo diro doono higher grade marka oo display ciyaalka weligaa su-aasha weydiin haddaad maqshiisu dambay maqana ninkaas waa qabday ninkaas waa qabday سودان شغال لطري وعجيب وايه هي وين كنت يدون اليوم ما غش دبي بقى سمعنا بدبي تكتي وول بيش ساعات هدي اقول لي عبد الله بس يقول لي دي بي وول بلوك حبايب كولا يا بس كذا على خليف يا خاتون هي دبي تي هي إذا ترامبو أكيد عند واحد كلا صار وكل عناية هاي مسؤول شركة دي بي وول هي يوتري هي شركة باتري على وسام سولويس هي يعينوا على بروفيسور على خليف قلال هي يعينها خاتون هي هشيس بندنا عندنا عبدها ذكرها هي هي خاتون ولا جلسة خاتون ولا جلسة هي أنا بركة واحد نسيت على مرة وهم ما هذا كذا مرة حورنا يا بودي حور بعض هي دكتور بيلا مرت هي لما يكون بينون ايه اللي الواحد يدي دكتور بالليل هي حاجه دي بقى بقى على قرص الدكتور هي هي ما شاء الله كلام هي بتروح لا سقور كورباش سجها وسرق وصلي سرق عايش سرق بقت سرق شيء لا سقور كورة هي بتروح مرقصة وصبح حفيز ايوه انا تليفون صدر هي على صاحب رونا هاجر وكل على خليل وري علي ايش نيو هؤلاء ترى دوك كلام عاشر ماشي المراكز هسكف الليل دق دق دبي وبو اي وحنا مخاطر كبيرات اي اي وانا بس وراح نروح كيبل القران تاع صبح اي وكليه ورنيو دي بي وول هي هذا هشيس لو دغلي هي من هرس بالك قادمي دي دكده waxaa nagu dhow laas qoray هي كان هشيس ila sax meesha salaac ugu dhowdahay هي arrinka aan dib u noqon baa oo maxaynu sameeynaa diyaha heshiiska anada aad ma soo wada xog leeyahay wasiirka kalluumaysiga iyo arrimaha badda oo dhan ee dowladda federaal oo niran khatma marka aan madaxweynihii iyo calooda reer asqoray iyo wasiirkii kalluumaysiga badda ee Soomaaliya waaba Charles Nassar wajana arrinkaas ka jira meesha la yiraahdo وين؟ يا أيه. وين قلت والله نيو نلا عبد الملك علدون. علدون. ولو حري. هي. ما أنت قلت ما أنت أفرتناد. وحبس كتيرو. سواء محكمة سلطان. صح. دوان لندن لسيه. سواء نك وكيل وقاضي أبا المرين. دينا هذيك بالشرع. ما شاء الله. هي. حق بناء هي. وين؟ واحد شرطة. يود بناء النمو. بني آدمه ضد ليته أو تعبان أي إنك محترج حسيت مركان بطلنا هستعوي ننكا سمية وناك وحال قوستي تهدو سمية معالم أو قوستي دي النبض إيه وناك بقول مية صح وصيت حد بلو إيجا أنت وناك وسبي كعبد الملك حتى من أحمر نحكيسه ونقولوا ونكا سبيه ويدعون حيرا نكها لأنه لو حيرا نورنا ونبقى إليه ذهب ليس وروى نو ناس ونفهم هذا السيدة فرع بنتينا ولا السيدة حمد بنتينا ولا سيد تمر دونك السيدة سفديس وابد بناء ولا أساس مركب حوي وأنا مواطن وحقول لي فكر كذا إنه أنا سلام صح وأساسي ماشي حمد بنتينا بلنيس أنا بقول مسؤولين سوماليا اسكدا بندتك كذا عادية نينا الحمد في المتر نينا الحمد في المتر أما حرير لا حرير لا أوكي سوماليا واحد قريب قطع سومالوين تا حين بعندهم لبض القلب صح ويكبرها هي قولها أقل كسرة مثل سوماليا عبد حاش هي أحمد حاش أو عبد حاش أسيب عبد حاش أيام ملحكة هي دتك أبروف قرية سعادينتو وصلادين تري سوماليا هرسجو هي محل سوماليا أي صلادين تلوسوا قبوا ويلو رواي صلاديني هو محل ورقان أدتك فصح حسين سامي محمد رتو وحي حتى بدون إنه هوس لوجل وإن أن فرح لجل لكن مسكين
waxaan mar kale ka codsanaynaa dowladda Soomaaliya dowladda waxaan si nin ay salaadiintii iyo ama shacabkii reer Soomaaliya ay sii deyn waayeen oo hargeysa dowladda xiriir far badan ay la sameeyeen kaftankii siyaasadda ayaan maanta magaciisa ka codsanaynaa madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo iyo madaxda iyo mas'uuliyiinta reer Soomaaliya meel la kala tegi mayno ninka hal iska sii daayo waxa loo sheego waxa lala fadhiisto waxa lala hadlo si bal si loo dhameeyo laakiin aarsi maaha xabsi waxa igu jiro wasiirada oo dhan baa loo tegay yaasino wasiir walba waxa la weydiiyey coddoon niyo muxuu ku xidhay aniga iyo maxay ku leeyahay عدو حنا ما نقدر له مركز سومالنا بل أنا لا حد عدو عضو حريه هاي هنوصل بيان عد حرت دب الأول نحوي أن حمد بوتي أما فرمات شو يستاك دمي ما هتحس فايز على ورانا قدامي أحس بوعي ده وراح حس الشيء ولا فرست إما كلا مسؤولين تحاول ما يوم ولا حدي إكس هنا دبل كليك هلا دبي أما تلقى مال كروكما عندك مقادم لا هو يربط والله فرنسا لا ولا بس ولا هذا شيء ولا يهين صوت ما بير نيرو ولا سكوتها وضمتك على سكوتها والله الله نيو أنا دب وين هو يبغى هبل بفرماتش سلامي وحرام عين قاسم واحد ما يندر ضدك واحد الدنيا إن جراد كذي لبس ليه ومهرب عليه وكاركتير ذي الجارسي والعالم كله تلاصق أو اعتراف سيء كل الحياة أي نقطة وناك هي النبض هي حرمر لكن عالم نقطة عارسي هي حمان هي الضبقال هي سفيرس سمع لنا سو مش هي ما هي حنمر كلك عسنا عضون إن السيدة عضون وحمتها ومضى الصومالية وحمتها دنيار خالد بيرجعني كوي نوها يكوي كعمالها كوي إندها يكوي تبثيرها إن هالكود وحلوقي وحسمي thousands of dollars dad aan weligood arag lacagta dollarka la yiraahdo oo kumaan dollar isaga magaciisa ku soo xiray marka waxaan ka codsanaynaa dawladda iyo xukuumadda Soomaaliland in si ugu xisaabadan iyadoo tixgelinaysa ummadda rabitaankooda inay ninka odaga ay sii daayaan gabagabadii barnaamijka ayaan marnaa haysiin sax sheegad ku qosashay انت انا dadka kala qosay ayaan ku soo dhiido aan nibir hor soo gaadhay bisi ayaan dhawaan si kadis isagoo hor dabetro waxaan salaamay magaciisina waa sheego saddex magac kale uu yeero markuu salaamay wuxuu yiri ii waran xasan bariisi waa saaxiibkay oo ka shaqeyn jiray idaacadda BBC marka qiyaastii wuxuu qiyaasay dhinac uu helayo inaan idaacadaha BBC waxa la shaqeyn jiray dhinac uu ka gartay magacaygina dhinac uu gooyay markuu yiri xasan bariisi war ayaa waxaan ku yiri niyo silay maxaad markaan tiyaabo silay maxaa ka qosayay iyo calaw iyo iyo kamida ku yiri marka sax ku yiri niyo silay ayaa hadda ka hor si kalisa waxay isku hor yimaadeen madaxweyne ku-xigeenkiisa عدل حسيري مركز سيري يجيب أصل أخصا وكين وعلو مركز كويل بول حاريور وطينا ملح ما أيو هرت قرت سيري علو هاي يدو واصل واسمه يجيب بول حاري واسمين وملز بول حاريور مركز وحقول هالقا سكودي سيري محسدي نيكلو صاحبه أيام مركز كم يقول وحن كإبن دبي هاي غير كور عام دفيا جناس ماليزيا تجمع إنجليزي لا بلا تدبارك بيل كتبارك دبي ما كان عقول نوريسو ما حد ستين عبد الوهاب محرقس مركز وحبا وايمير ساقي سوي كدينه اسمه بس لا يلا دبي ما مو تبع مسجين هاي دبيتو فاز على الورق وأنا تلفون بضع وحنا فاز الدور محل أسبوع كله ونيو أورما نوريسي وحنا نوريري خير بيدابو أي أحد بس يبرعين الوصولش وعندنا إلى الإمبريشن شرع صوص عبده ضد كان دبلو ملاكي هي نتروح نقول دولار ترامب حسيته محد عيال وحنقول دولار ترامب بايع حاسك هو إميجرنت حاسك دولار ترامب يرم مريكل معه لين ثلاثة مركا إميجرنت كم حكم لا ميا
marwadiis afadiis ka bilaabaya faysal hadii la yiraahdo dadka hal musafir bilaw loo celiyo afadiis ka bilaabay waxaan Donald Trump ayaa isla waxa ku mashquula dad hal dhoofiin dad halka wasigeeyay dabeetana nin kale oo isagana reer New York ayaa telefoon ku lahaa nin odaya nin wuxuu yiri wadanka mala soo soo joogo oo guriga waa nin PhD holder waxaan ku niyo guuritaan aad guuraysid waayo wuxuu leeyahay daba baadi ungeedi sida aniga iska abo lulsa iyo magaalada iska hadlay jamacada dhigay waxaan ku shahaado qaali ah maxaa wada ku shaqeeyay inta baadi la tagsi wuxuu leeyahay sidaas aan door biday waxaan ku yiri ina ala khalif kala maxay maxaa dhacay waxaan ku yiri isagoo PhD holder oo ra'iisul wasaare soo ajro nin khatar ah imka geed isla aan geed bacda ماليش عليك البحرين انت iyo ayu iska fadhiyaso marka what's wrong with you ninka anta samson dabeeto xamar baati waxaan tiga turki waxaan ku arkaa xasan waxaan ku madaxweyne hore xasan sheekh warno wala ficay waxaan ku xasan dad baa loo aaminsan marka la sheekaysto qaraxyada xamar bay ka dhacaya xasan baa ka dambeeya laakiin xasan baa jira tuuga inta la maxay حسب قصب قلت وحلو ديس مقال الصومالي كمدا نين فروله هي دتكو حدث نينكي با اسكرتي صوغت صديق بوليس كانوا هي يسوي حاجه هي صبحي ناق بات واحد تلي فرول بحال لو سو دحay هي ولا قرتي هي markaas uu yaalo furuqay ma furuqayni ma furuqad صديق xidhay iyo kad mid kale ordisat هي waxay tiri tani ninkii farula waxba naga mutay marka wuxuu yiri waliba dadka waa safaru baa waa soo ka faral ku jira yaalo Soomaaliya Turkiga jooga ninkii halkaas ka jooga ay wixii xamar ka dhacay wax oran doona waliya xasab baa ka dambeeyay marka farulka soo kale la iska eedeeyay ayaan la mid tahay barnaamijkeeni intaas ay ku soo koobiya maanta يس وي على الحلال هذه ما تنتهي مرة بعد يوم مرة صدق حابة تدوينها الشرف ترى إنك داونية بدون كده